ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan niyow ilaahay in badan baan bariyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in lagaa aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 3 nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciid yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidla ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay 3 nin yidhaahdeen waryaay nin walowba bal wixii aad isleedahay camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari 3 nin mid waliba camalkiisu ilaahay ku bari mid wuxuu ku bariyay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalmaha ka mid a xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkiiyo da'a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi wuu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cid toona waxaa siinay waalidka u horraysay wuu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska 20 daqiiqo qofku markuu da' gaadho wuu yaro seexdaa waa soo toosaa waa yaro seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyay caanihii baa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islahaa mar uuna indhaa kala qaadan hana toosinni hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryaya wuxuu leeyahay yaa rabbi waad ogtay inaan dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fayguy dhagaxii in buu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha mid kale ilaahay baryey wuxuu ku baryey inuu shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi warriyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyey isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqay oo dhan adaa le kaxayso hore igu cayaarinaya intii maalintayduuna shaqaystay intayduunu sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaase ilaahu waad ogtay buu leeyahay ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka fayda weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiisku kala horraysiinayaaye siduu kala horreeyo bayna sheegini kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diidday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi sukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa imise waa kuus dhan oo lacaga waa xoolo aad u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbashay laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaa war ilaahay ka boqo
وماشاasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi Allah bay ku tiri eraygaas madaxiisa galay ittaqi Allah wa hooy ilaahay ka cabso ayay ku tiri dabeetana maradiisu dib u xidha iskaga tag dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxa ka kaxaysay in lagu yidhi maxay ittaqi Allah ilaahay ka cabso إلهي بو بريي إلهي عمل كاسوكو بريي إلهي وادقى الدراد دا إن الزينة دا واتبي تبتنا إلهي دقيحي وكفي إذن صدح ذنن متكم إذا الدعادي سوح الواق بلاي محي إنو فرجقي صدورتي قصة كالي وحقها وين كان بتشيغ ملا نبي الله إبراهيم أيها جرودي isagoo ay la socoto haweenaydiisii saara la odhan jiray saarina gabadh qurux badan bay waa nebi isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aad u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safaro haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badanoo saara la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaada boqorkaa loo geeyey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadii latii macak war tan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim wuu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhiye haybeenini gabadh kastoo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku idhi waa walaashay waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo in loo walaalle ma jirto haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yar isug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay baratay ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik wa axsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaanaan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya haada alkaafir ilow gaalka ah igu ibtilayn waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuulih rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay nafti isugu timi waa labadooda ayay istidhi oo hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tidhi ila waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay war bal yara sug bay tiro waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxay naftu markay qabatay bay istidhi war haddana waa lagu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku day ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqaysa kaxayso nebi ibraahim
taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timo wa huwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yaho salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxaan leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga oo dhowrsanaaday kuwii godka galayna ilaahay kurbada waa kaga fayday gabadhii boqorka dhami uu kaxaystayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey waxaan ku soo koobaynaa marka dhowrsoonidu diintay ka mid tahay waxyaabaha jannada lagu galay ka mid tahay waxyaabaha firdowsil aclaa lagu helay bay ka mid tahay waxyaabaha qur-aanka ilaahay nebigu ammaanay nebi yuusuf ha ku ammaanay bay ka mid tahay haweentuu ammaanay maryamata bnu cimraan ilaahay ku ammaanay bay ka mid tahay walidaalika qofka muslimka ah waa inuu dhowrsanaada